Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan qaadanaynaa cashir ku saabsan sida loo sameeyo lower third-ga. Waxaan qaadanaynaa lower third-yada maadaama ay badan yihiin marba midaan qaadanaynaa. Waxaan ku sameynaynaa barnaamijka la yiraahdo Adobe After Effects ayaan ku sameynaynaa. Kadib waxaa ku dhufanaysaa new composition ayaad sameynaysaa. New composition halkan waa ka dhigi kartaa. Halkan file inaad tiraahdid haddana new aad tiraahdid. halkan waa ka dhigi kartaa new project kadibna composition ayaad dhigi kartaa. halkan waa ka dhigi kartaa file menuga composition new composition. marka meesha ugu fudud waa halkan kanan ku dhufanaynaa. okay marka resolutionka waa 1920 1080p waa intaas ku dhaafaynaa. frame rate waxa waaye 29.97 waxaan ka dhiganaynaa marka 10 daqiiqo ayaan ka dhiganaynaa oo intuu soconayo durationka. okay marka kan waan hilmaamnay inaan magac ka bedelno laakiin problem halkan waa laga bedeli karaa. rename aan leedahay waxaan leenahay marka waxaan ka bilaabaynaa Facebook ka bilaabaynaa Facebook lower oo L ah iyo 30 oo 3. okay enter aan leenahay. composition magaciisa waa kaasaa. Allahumma sa'aan marka waxaan ku sameynaynaa kan waa main composition ka waaye. new composition aan leenahay. halkan waxaan leenahay logo Facebook logo F logo aan leenahay. okay composition kale aan sameynaynaa asagana aan lehayno username logo waxaan ka bilaabaynaa haddii aleedno Facebook logo ka bilaabaynaa. halkaas kala tagaysaa oo rectangle-ka waxaa qabanaysaa shift-ga qabanaysaa kadib waa soo jeedaysaa. anchor point-ga hadduusan center-ka hadduusan ku joogin kaasoo sidoo kale hadduu ku joogo wax walba aad samaysid meeshaas ayuu ka bilaabayaa. tusaale ahaan markaan dhaxno scale oo kale markaan dhaxno kan markaa cibarta tiraahdeed waa kaasaa wuxuu kasoo bilaaba gees kasoo bilaaba. marka saas sax kuguma naqanayo. haddii marka center aan ka dhigno wuxuu ka dhigaa centerka oo animation ku sameynaya. marka waxa ugu muhiimsan waa in micnaha mar walba aad ka taxdirtaa anchor point-ga. okay marka waxaan rabnaa marka inaan centerka aan ka dhigno composition-ka. okay kan vertical center iyo horizontal center hadda wuxuu noo joogaa dhexda ayuu noo joogaa. okay marka si aan u baabi'ino marka geesaha saan u baabi'ino kanaan furaynaa contentigiisaan furaynaa rectangle path 1 ayaan furaynaa. meeshaan roundness ee ku qoran tahay ayaad waxaa ka dhigaysaa intaad ka dhigi kartaa. haddii aad cabirkaas ka dhigto saas kuu noqonaa. haddii aad sii weynaysid circle caadi u noqonaa. marka waxaan ka dhiganaynaa hadduu aleedmo 30 ama 35 30 aan ka dhiganaynaa. okay waxaan hadda haysanaa marka shape-kii oo loogada ayaan haysanaa. marka inta waxaan ku qoraynaa magacayaan u bixinaynaa Facebook logo shape. waxaan bedelaynaa marka color-ka ayaan bedelaynaa. waxaa right click aad leedahay new aad leedahay solid color-ka waxaan ka dhiganaynaa midka rabnaa ka dhigi karnaa laakiin waxoogaa yar cadaanka u dhawaanaynaa. hoos aa keenaysaa marka kan waa xiraynaa. marka hadda marka waxaan haysanaa loogadii aan haysanaa. waxaan ku sameynaynaa marka animation ugu horeeya ayaan ku sameynaynaa ilaa iyo 15. kadib halkan waxaa ka dhigaysaa 0 ka dhigaysaa
wada highlight saaraysaa F9 ayaad leedahay easy ease kana furaysaa ka waxa la yiraahdaa graphic editor la yiraahdaa ayaa furaysaa si macna smooth soo shaqeeyo from preview hadaan dhahno preview akasa waxaan bedeleynaa colorkan ka bedeleynaa maadaama loogada Facebook ay tahay blue light blue waxaa ku qoraysaa marka F ayaa ku qoraysaa oo Facebook loogadiisa F ayaan ku qornay nooca farta waa Calibri bold iyo noo yahay adina saddex marka tan ugu weynina okay under angle point-ga dhexdeena keentid waaye marka si ay labadoodaba ay centerka si u noqdaan labada highlight saaraysaa kadib waxaa leedahay align aad tegaysaa vertical align horizontal ayaad leedahay iyo align vertical markaasa markii kan oo noo soo kaco waxaa la rabaa isku waqti inay yimaadaan la rabaa S scale waaye start scale waaye kan xaggi kan every preview markay saas tahay marka waxaan sameynaynaa marka shift R ayaad leedahay rotation aan ku sameynaynaa ka marka waxaan ka dhigaynaa isagana halkan waxaan ka dhigaynaa marka -1 preview marka kan in yar aan kasoo durkaynaa waxaan ka bedeleynaa contentiga ayaan ka bedeleynaa roundness ayaan ka bedeleynaa contentiga fur kan waxaa leedahay stopwatch aad leedahay si aad keyframes aad u samaysid intana haddana keyframekeeda taabanaysaa okay marka waxaan ka dhigaynaa halkan waxaan ka dhigaynaa 160 ama 150 iyo wixii ka badan si macnaha wareeg soo noqdo oo afartiisba isku cabir u noqdaan saas marka waxaan ugu samaysan Facebook loogada asaas noogu samaysan halkan waxaan ka dhigaynaa isku waxaan ka dhigaynaa haduu ilaa yiraahdo speedkeena isla socdaan F9 ayaad ku dhufanaysaa kadibna graphic editor-ka tegaysaa highlight saaraysaa kana yara weynaysanaysaa oo slowly inuu socdo kana waxa ka dhigaysaa speed inuu socdo ka dhigaysaa solid color-ka aan soo gelinayna meesha labada mask trace iska bixinaysaa si aan macnaha hadda waadax ugu noqdo waa in macnaha aad samaystaa baalki halkan fur kana fur size-ka marka halkan kan linkigan haddii aad kala qaadin isku hal mar isla shaqeynaa laakiin haddii aad kala qaadin halkaasaa waxaad mid ka arkaa isticmaali kartaa best ku dhaca birka data aan wada composition oo dhammaan yareynaysaa
halkan composition ay tagaysaa waxaa leedahay crop com to region of interest in yaro noogu soo saaray markaas hadda marka uu yar yahay ka marka waa xiraynaa marka ثالثة ويني كرت انت ثالثة يا ريت كرتها scale property هنخلينا under 100% هنخلينا اوكي فيسبوك لورد ثاني يكون يوزر نيم بنكين سيان ويلنا عبرك صح كلارك وايد كدغتي اوكي marka halkan waxaan ku qoraynaa marka user name kaadi kalarkan ta ka dhigi kartaa user name waxa rabtaa ku qori kartaa adiga cabirka in yar weyneenayna kan marka joog farta hadaad inta ka jeedi kartaa anchor point-ga mar walba oo farta wax ka bedeshid waa in anchor point-ga waa ina center ka dhigtid هذا مركب حملة سميسان قرالكي إيو قرالكي return user name text كنا حوالي uname و user name شيء marka waxaan ka dhigaynaa marka username shape kan waxaan ka dhigaynaa horta loogadii ama waxaa fiirisaa marka okay kan ugu dambeeye ayaa marka hal second iyo hal ilbiriqsi hal second iyo 5 waaye هل سكن إيشان أيام قبل هنا مركها هل سكن إيشان أنكر بوينتي مركها حكينينا هل كان حكينينا كبوينتي حاجة سكنتي أوكي سكيل بروبرتي فر سكيل له طبعا إيشان عمل كور دينا كم كله فوق كان وريتي إما هل كان وحكى لي سامركا وحكى قاضي سامركا لينكي كان أو إيش حرا لبضان يا قاضي سا تك قاضي سا هل كان وحكى لي سا زيرو وحكى لي سا مركا دي أن بروبين وكاسا خاص شقينا كم مركا هايلايت جراي كدبنا F9 كلفه جراف إديتر كتك هايلايت سار كدب سموث خليك مركا marka waxaan sameeynaa marka kan qaabkan shaqeynaa marka kan waxa leedahay marka control D oo duplicate ah korgay marka waxa leedahay mat qor kan marka waxa tiraahdaa nan meeshan nanta tagaysa waa track maada wahay hadii aadan haysanin halkaas ku xunaysaa كاسمر كله كذا هليسا تراك مات من تاسو حق لقيسا ألفا مات حق لقيسا أوكي رام بريفيو لي أمرك هذا مركا كان السجا أو isagoo template meesha hoose ayaan soo dhigi doonaa haduu ilaa yiraahdo meesha saad ka download kareysan kartaa hadhow marka meeshaan magacaada ku qoran kartaa waxa rabtaa ka dhigi kartaa waa bedeli kartaa colorka ku bedeli kartaa wax walba ka sameyn kartaa waa kaasa waa inta waa qaabka loo sameeyo Facebook lower 30
asoo marka template ah ayaan hoos idin soo dhigayaa meesha description qaabka oo loo edit garaynayo insha Allah cashir kale ku qaadanayna hadduu Ilaahay yiraahdo haddana waa qaabka loo sameynayay Facebook waxaan sameynaynaa marka si oo macnaha cabirka loo yareeyo waxaa ku diri kartaa waxaa la yiraahdaa null objective marka magaca u sameynaysaa controller leedahay labada waxay la garaynaysaa kadib big web aad ku sameynaysaa oo isku xiraysaa labadan waxay ku link garaysan yihiin kan marka meeshan wixii laga sameeyo ayay ayagana haddii aad scale aad tirahdid oo wada gaabanayn waa wada yaraanayaan haddii aad hadba meeshaan kan marka si aan kan aan u qarino waxay qarinaysaa bes marwalba uu shaqeynaysaa haddii aqoon sideedada qarinba marka waa qaabkaas waa qaabkii uu u shaqeynayay loo sameynayay Facebook lower third waan yareysanaynaa marka si macnaha doodi meel walba loo dhigi karo composition kan yareynaynaa composition com waa save garaynaynaa macnaha waxaan ka dhiganaynaa bahalkii composition at render halkan waxaan ka dhiganaynaa lossless with alpha kana intaad kliksinaysaa quick time ka dooranaysaa okay leedahay okay halkan ayaad magaca u bedelaysaa waxaa leedahay Facebook lower third lesson أنا أقول لك كل ساعة ودهنه أوكي هذا هاي render هذا هاي كان يرسل إن تكلمين هاي كذب قابل له استعمالها من قسم قطوسها هل كان محل هذا import على هذا right click import على هذا هاي حنسوق هذا صور وكلام سوق هذا كم بعد سوق هذا نصور كم موديشة أوكي تراكم كسوس مي هل كان أوكي سام ونويمت عن سمينا مركا وحنا كسدرينا مركا لور تيري كم كسدرينا رايت كليك import وحنا وجري فولر كان محنا مركا فيسبوك لور تيري ليسن عنا كان فيسبوك لور تيري ليسن وكان هو سوق هذا halkan soo saaraysaa marka asoo weyn yahay inta marka soo yareynaysaa waxaad geysanaysaa meesha aragtid halkaas marka brayde si marka oo smooth isugu shaqeeyo kana tirigsiinaysaa kadib waxaa leedahay sequence waxaa leedahay render in to out jaaladana waxaa la rabaa inay cagaar noqoto kadib waa si fiican u shaqeynaya
وكاس على كل حال قاب الله صارنا هيا مركي وكاس بالك وباك جراوند ملها وهواي ترانسبيرنسي وباك جراوند كيسة فيديو صور أدبو حارة كذا صار كرتا عشر كان أنت سنوي هاي أصور تمبليت وحكي لي إن شاء الله يوتيوب كاي صور لقيا قيبت هوس الديسكريبشن كا قيبت هوس أياك صور أياك دور الدراسة كرتا صور فريا لكن وحنا قاعد سنة يا دمان أنت داون دونتو أو عشر كان كاشي فضلا يوعوية لايك يو سبسكرايب يوعوية إن شاء الله وإن سلام يا ما أنت أيدي معناته أما هبينك أيدي معناته عند وقت جوكتين السلام عليكم